salaamullaahi calaykum akhyaarta nala socota meel kasta oo aad dunida ka joogtaan tabin iyo taxliilin kale oo ka mid ah wararkii iyo dagaaladii saakay ka jiray gobolka bariga dhexe ayaan idinla wadaagayaa waa 19 bisha Juulaay sanadka 2026 qodobada aad daawo doontaan waxaa ka mid ah dowladda Sacuudi Arabiya markii ugu horeysay waxay si dhameystiran u gashay dagaalka ka jira gobolka bariga dhexe iyadoo duqeyso saldhigyo kooxaha Iiraan taageera ee ku yaala dalka Ciraaq ka fulisay duqeymo kooxda lagu magacaabo Xashdu Shacbi ee wadanka Ciraaqna waxay ku warameen qasaaraha soo gaaray dhimashada iyo dhaawaca leh 12 qof ayaa la soo waramaya saakay inay ku gaariyeen duqeymahaasi ciidamada ilaalada kacaanka jamhuuriyadda islaamiga ah ee Iiraan 4 maalin oo gobolka uu ku jiray xasilooni waxa ay si adag u garaaceen qaybo kala duwan oo kamid ah saldhigyada Mareykanka uu ku leeyahay gobolka bariga dhexe gaar ahaan wadanka Jordan haddaba maxay tahay warbixinta ashqaraar kale oo ay soo saareen ciidamada qalabka sida ee boqortooyada Urdun barnaamijka ayaad ku daawan doontaan markii ugu horeysay dowladda Iiraan oo dagaal uga jirta bartamaha ayaa soo bandhigtay diyaarad dagaal oo aad iyo aad la yaab u leh diyaaradaasi oo lagu magacaabo Al-Hadid ayaa waxaa la sheegay inay ka mid tahay kuwa wadankaasi lagu farsameeyay oo loogu talagalay in dagaaladu ay qayb ka noqdaan waa fariin iyo waliba dhaqan cusub oo dagaalka ku soo biiraya marka la fiiriyo dhinaca Iiraaniyiinta Ra'iisul Wasaaraha Israel Benjamin Netanyahu waxa uu ku dhawaaqay in uusan waligii aqbali doonin heshiis la galo nidaamka jamhuuriyadda islaamiga ah ee Iiraan isla markaana uu jawaab adag ka bixin doono haddii Iiraan gantaal ay leedahay uu soo gaaro dhulka ay Falastiiniyiinta ka haystaan nidaamkaasi loo soo waarido gobolka bariga dhexe waa Israel Ra'iisul Wasaaraha wadanka Ciraaq ayaa booqasho uu ku tagi lahaa ee wadanka boqortooyada Sacuudi Arabiya dib u dhigay kadib markii wadankiisa lagu qaaday duqeymihii ugu xooga badnaa halka warar kale oo soo baxayana ay tilmaamayaan in weerarkiisa ka dhacay uu ka hadlay wadaadka saameynta badan ee Muqtada al-Sadr oo kamid ah raggii hore gacan saarka oo la lahaa wadanka Iiraan isla markaana qaybta ka ahaa dagaaladii shacabka Sacuudiga ay la galeen dowladda Mareykanka kadib markii meesha laga saaray dowladii uu hogaamin jiray Saddam Hussein sanadkii 2003 khiyaarta inala socotay qodobadaas ayaan ku faaqidaya barnaamijka iyo kuwa kale oo dheeraad ah meel kasta oo aad joogtaan ku soo dhawaada YouTube-ka oo subscribe saara dhinaca kale su'aasha maanta waxay tahay jawaabta Iiraan iyo waliba weerarka Sacuudiga jaha intee ah ayuu bariga dhexe wada ku bilow magacaada iyo meesha aad joogto kadibna faalladaada qaybta hoose inoogu qor halmaamin inaad YouTube-ka muuqaalkan like saarto si uu meel dheer u gaaro isla markaana aad subscribe tiraado si aad uga mid noqoto saaxiibada wararkeena sida tooska ula socda aad baad u mahadsantiin ma ogtahay in dhakhtar Shaafici aadan dirir loo aqoonsaday dhakhtarka ugu wanaagsan qaliimada dalkeena Soomaaliya ahna dhakhtarkii ugu horeeyay ee wax ku qala qalabka casriga ah ee laparoscopiga ama laserka maalin waliba wuxuu heegan kugu yahay isbitaalka Shaafici ee magaalada Muqdisho ee hore u gaar dowladda Sacuudi Arabiya ayaa ku dhawaaqday in ay xalay fulisay weeraro gudaha wadanka Ciraaq kadib markii la sheegay in la weeraray xarumaheedii wax soo saarka petroolka oo ay isha kaliya ee dhaqaalaha ee wadanka Sacuudiga uu lahaa kooxaha gacan saarka la leh wadanka Iiraan ee fadhiya labada jiha ee wadanka boqortooyada Sacuudiga gaar ahaan kooxda Xuutiga iyo waliba maleeshiyaadka hubaysan ee Xashdu Shacbi loo yaqaan ee wadankaasi Ciraaq jooga ayaa waxay bilaabeen inay si ba'an u garaacaan qaybo kamid ah wadankaasi Sacuudiga kadib markii dowladda Sacuudiga ay qayb ka noqotay dagaalada iyo caburinta ka dhanka dowladda Iiraan Xuutiyiinta ayaa saacadihii la soo dhaafay oo gelinkii dambe ee shalay ahayd ku dhawaaqay in ay weerareen markab kale oo shidaal oo dowladda Sacuudiga ay leedahay hasaatee Riyaad ayaa xalay ku dhaqaaqday in ay samayso duqeyntii ugu xooganayd wasaaradda difaaca ee boqortooyada Sacuudi Arabiya ayaa ku dhawaaqday in iyada oo kaashanaysa taliska dhexe ee militariga Mareykanka ee CENTCOM ay fulisay duqeymo gaar ah oo lagu beegsaday bartilmaameedyo ay sheegeen inay ku sugnaayeen maleeshiyada Ciraaqiyiin sida ay lagu sheegay bayaan ay soo saartay wasaaradda duqeymaha ayaa la xiriiriyay weeraro hore loogu qaaday xarumaha shidaalka ee boqortooyada Sacuudiga
sida weyn muhiim ugu ah wadankaasi dhaqaalihiisa. wasaaradda difaaca ayaa sheegtay in tallaabadan ay ku salaysan tahay xaqa Sacuudiga uu leeyahay isdifaaca qaran, iyadoo xustay in dadka uusan doonayn baaliiri in uu sii horiyo colaadaasi, balse sida ugu adag ee uga jawaabi doonto weerar kasta oo lagu soo qaado. Sacuudiga ayaa ku adkaystay mowqifkiisa. Golaha wasiirada ayaa shalay cambaareeyay weerarada ay sheegeen inay fuliyeen maleeshiyaad taageersan howlgallada Ciraaq ee ka howlgala gudaha Ciraaq ee gacan saar la leh dalka Iiraan, kuwaas oo lagu bartilmaameedsaday weeraradooda weeyaan xarumaha shidaalka ee gobolada bari ee dalkaasi Sacuudiga ku yaala. weerarada waxaa loo adeegsaday diyaaradaha aan duuliye lahayn, laakiin dowladda Sacuudi Arabiya waxa ay durbadiiba sheegtay in fariinta weeraradooda ay tahay in wadankaasi uusan gacmaha istisaaran doonin, waxaana ay bilaabayaan dowladda Sacuudiga baa layiri tallaabo kasta oo argudasho ah haddii maleeshiyaadka taageersan wadanka Iiraan ay sii joogteeyaan weerarada Sacuudiga. dagaalada gobolka bariga dhexe ayaa hadda u muuqanaya in dadku ay kala miirmayaan, iyadoo dowladaha sunniga u badan ay dhinac marayaan halka maleeshiyaadka iyo waliba Iiraan oo shiicaan ay dhinac kale ka dagaalamayaan. cidda u dhaxaysa haddana waa dowladda Mareykanka oo dhinaca Sacuudiga taageero siinaysa. warka soo baxay dhaqdhaqaaqa loo yaqaan al-Xashdu Shacbi ee wadanka Ciraaq ayaa waxa ay sheegeen in ugu yaraan 20 qof lagu dilay weerarkii xalay Sacuudiga uu ku qaaday gudaha wadankaasi Ciraaq, gaar ahaan saldhigyada kooxdaasi ay ku leedahay gudaha wadankaasi. kooxdu waxay ku dhawaaqday in ay bixin doonto jawaabo degdeg ah oo ay doonayaan in ay si weyn ugu argutaan haddii dhibaatooyinku ay sii ballaartaan. ururka lagu magacaabo BMV ee loo yaqaano Xashdu Shacbi ee wadanka Ciraaq ayaa sheegay in ugu yaraan 20 qofood ay ku dhinteen halka 32 kalena ay ku dhaawacmeen kadib weerar lagu qaaday dhowr xarumood oo ay ku leeyihiin gobollo kala duwan oo kamid ah wadankaasi Ciraaq. sarkaal ka tirsan Xashdu al-Shacbi ayaa u sheegay wakaaladda wararka Faransiiska AFP in weerarada lagu beegsaday xarumo ku yaala dhowr gobol, iyagoo xusay in weerarka uu ahaa kii ugu khatarta badnaa oo ka dhacay gobolka Nainawa, halkaasi oo lagu bartilmaameedsaday saldhigga guutada 30aad ee ka tirsan dhaqdhaqaaqooda sida ay tilmaameen. sida uu sheegay sarkaalka, ugu yaraan 30 xubnood ayaa lagu dilay goobtaasi oo kaliya, iyadoo la filayo tirada dhimashadu in ay sii korortay. waxaana kale uu xaqiijiyay in dhaawacyada lagu diiwaan geliyo xarumo kala duwan oo ururka uu ku leeyahay wadankaasi. dhinaca kale, taliska ciidamada Mareykanka ee CENTCOM ayaa sheegay 28 Luulyo inay si wada jir u fuliyeen ciidamada qalabka sida ee Sacuudiga duqeymo sax ah oo ka dhacay gudaha wadankaasi Ciraaq. CENTCOM ayaa waxay sheegtay in weerarada lagu bartilmaameedsaday kooxo ay ku tilmaameen argagixiso taageersan Iiraan, kuwaasi oo ay sida ay sheegeen ilaalada kacaanka ee jamhuuriyadda, isla markaana ay u diyaarinayeen inay weeraraan ciidamada Mareykanka iyo kaamayaasha tamarta ee wadanka Sacuudiga. wararkan ayaa imanaya iyadoo xiisada gobolku ay sii kordhayso, isla markaana ay soo baxayaan in weerarada iyo duqeymuhu ay noqonayaan kuwii ugu awoodda badnaa tan iyo markii dagaaladu ay dib u bilowdeen. wadaadka caanka ah ee wadanka Ciraaq ee sida weyn ula dagaalami jiray dowladda Mareykanka xilligii la afgambiyay dowladii madaxweyne Saddam Hussein oo lagu magacaabo Muqtada al-Sadr ayaa waxa uu soo jeediyay in kooxaha hubeysan ee wadanka Ciraaq aanay sabab u noqon marmarsiyo wadankaasi dib loogu qabsado oo loogu soo duulo. waxa uu tilmaamay intii ay goor tahay in fakar dheer lagu daro duqeymaha iyo bartilmaameedyada laga dhex fulinayo gudaha wadankan. hogaamiyaha Muqtada al-Sadr ayaa ugu baaqay maleeshiyaadka hubeysan ee dowladda hoos imaan inaysan bixin baa layiri marmarsiyo lagu soo duqeeyo gudaha wadanka Ciraaq, isla markaana wadankan madax banaanidiisa iyo taladiisa aan gabi dheer looga tuurin. al-Sadr ayaa sheegay in kooxaha hubeysan ay ka fogaadaan tallaabo kasta oo keeni karaysa in dalka loo adeegsado goob dagaal ama weerar dibadeed.
waxa uu sidoo kale ugu baaqay dowladda Ciraaq inay adkayso amniga gudaha sugta madaxbanaanida iyo qarannimada dalka isla markaana laga fogaado waxa uu ku tilmaamay quraafaadyada iyo kicinta nacaybka madaahibta. Al-Sadar waxa uu cambaarayay in duqeymaha lagu beegsaday dhulka Ciraaq isagoo sheegay in weeraradan ay imaanayaan dhinac kasta ay qatar ku yihiin xasiloonida iyo badqabka wadanka iyo shacabka Ciraaqiyiinta. hadalkan ayaa imanaya xilli xiisadu ay cirka isku shareertay isla markaana dowladdaasi Iiraan ay u muuqato in ay dadaalo badan ku bixinayso sidii maleeshiyaadkeedu ay dagaalada guulo waaweyn uga keeni lahaayeen. dowladda Jamhuuriyadda Carabeed ee Ciraaq ayaa ku dhawaaqday in ay ra'iisul wasaaruhu dib u dhigay booqasho uu ku aadi lahaa wadanka boqortooyada Sacuudi Arabiya kadib duqeyntii xalay dowladda Sacuudiga oo kaashanaysa militariga wadanka Mareykanku ay ka fuliyeen qaybo kamid ah gudaha wadankaasi Ciraaq. Talaabadan ayaa u muuqata xiisad diblomaasiyadeed oo mar kale gobolka bariga dhexe galgali doonta sida khubaradu ay tilmaamayaan. ila ka tirsan dowladda Ciraaq ayaa u sheegay telefishinka Al Jazeera in dib loo dhigay booqashadii rasmiga ahayd ee ra'iisul wasaaraha Ciraaq uu ku tagi lahaa boqortooyada Sacuudiga iyadoo aan weli la shaacin sababta rasmiga ah ee keentay dib u dhigistan. ra'iisul wasaaraha ayaa la filayay inuu Khamiista gaaro Sacuudiga halkaas uu kula kulmi lahaa madaxda wadamadaasi si ay uga wada hadlaan xoojinta xiriirka labada dhinac. sida uu qorshaha booqashada ahaa waxa uu ka qayb gali lahaa in la qabto wada hadallo laba geesood oo u dhaxeeya labada dowladood, in la saxeexo heshiisyo isafgarad muhiim u ahaa wada noolaanshiyaha iyo waliba iskaashiga dalalkaasi, iyo in laga wada hadlo iskaashiga amniga iyo isku duwidda la dagaalanka qataraha gobolka, iyo ugu dambeyntii in dib loo eego xaaladda amni iyo siyaasadeed ee gobolkaasi bariga dhexe aadka uga taagan. dowladda Jamhuuriyadda Islaamiga ee Iiraan oo xalay si adag loo weeraray xulufadeeda iyo wadanka Ciraaq ayaa waxa ay bilowday iyana inay si adag u garaacdo saldhigyada Mareykanka uu ku leeyahay dalka Jordan, halkaas oo la sheegay taliska ciidamada ilaalada kacaanka jamhuuriyaddu inay qaadeen tillaabooyinkii ugu xooga badnaa ee dowladda Mareykanka lagu jitay xalay. xiisada u dhaxaysa Iiraan iyo Mareykanka ayaa mar kale cirka isku laashay kadib markii ilaalada kacaanka ee jamhuuriyaddu ay ku dhawaaqeen inay gantaalo baalistiga ku weerareen saldhigyo ay sheegeen in Mareykanka uu ku leeyahay wadanka Jordan oo laga soo abaabulo duqeymaha iyo duulaanka wadankaasi Iiraan lagu hayo sida ay hadalka u dhigeen. war-saxaafadeed ay soo saareen ilaalada kacaanka ee jamhuuriyadda ayaa lagu sheegay in weerarka uu waajib ku yahay waxa ay ku tilmaameen dhaqdhaqaaqyada iyo hanjabaadaha ciidamada Mareykanka ee ka dhanka danaha Iiraan. waxay sidoo kale ku hanjabeen inay sii wadi doonaan weerarada haddii cadaadiska Mareykanka uu halkiisa sii taagnaado. dhinaca kale ciidamada qalabka sida ee boqortooyada Jordan ayaa waxa ay sheegeen in nidaamyada difaaca ciidamada cirka ay waabariga Arbacada hawada ku qabteen isla markaana ay soo rideen 5 gantaal oo Iiraan laga soo tuuray kuwaas oo soo galay hawada wadankaasi sida ciidamada hadalkooda ay u dhigeen. afayeenka ciidamada difaaca qaranka Urdun ayaa sheegay in ciidamada qaranku ay si gool ah uga tacaaleen gantaalaha isla markaana laga qaaday tillaabooyinkii lagu sugayo badbaadada shacabka gaar ahaan meelaha ay ku dhici lahaayeen burburkoodiina laga sii fakaray. wararka ayaa sheegaya in saacadihii hore ee waabarigii la dareemay dhaqdhaqaaqyo ciidan iyo feejignaan sare iyadoo dad goobjoogayaal ay sheegeen inay arkeen gantaalo maraya gobollo kala duwan oo ay ka mid yihiin Irbid, Cajaluun, Jaraash, Zaqra iyo waliba deegaanka loo yaqaan Al-Azraq iyo agaarka ciidanka cirka saldhigga ay leeyihiin ee la yiraahdo Al-Muwaffaq Al-Salti oo ciidamada ilaalada kacaanka marar badan ay si weyn u garaaceen gudaha wadankaasi. Mareykanka waxa uu sheegay dhammaan gantaalaha lagu soo tuuray wadanka Jordan waa la qabtay oo ma noqon mid shaqayn kara ay hadalkooda ku yiraahdeen. xiisadan ayaa soo cusboonaanaysa iyadoo walaaca ugu weyn hadda laga qaba ay tahay gobolka bariga dhexe jihada iyo goobta uu ku wajahan yahay marka la fiiriyo isbedelada waaweyn iyo waliba xiisadan sii kordhaysa iyo dhibaatooyinka dagaalku ay keeni karayaan oo hadda u muuqanaysa in ay aad u adag tahay. iyadoo dagaaladaasi iyo duqeymaha dhimashada iyo dhaawaca iyo burburka hantida ee ka taagan gobolka bariga dhexe
ay hadda taagan tahay meeshii ugu sareysay. haddana dowladda jamhuuriyadda islaamiga ah ee Iran ayaa soo bandhigaysa qalab dagaal iyo diyaarado ay ugu tala gashay inay dagaalkan qayb ka noqdaan. diyaaradda Al-Hadid 110 oo ay soo saareen ciidamada Iiraaniyiinta ayaa iminka noqonaysa midda ugu weyn ee walaaca leh. haddaba diyaaradan maxaa laga yaqaanaa, maxayse qaban karaysaa? warbaahinta qaranka wadanka Iran ayaa sheegay in diyaaradda cusub ee aan duuliyaha lahayn ee la yiraahdo Hadid 110 lagu sameeyo casriyeyn ballaaran taas oo ka dhigaysa in ay ku duusho joog hoose kuna socoto xawaare sare, isla markaana ay adkaan karayso inay qabtaan baa layiri raadeerada difaaca cirka sida ay qorayaan qaar ka mid ah warbaahinta kala duwan. sida lagu daabacay wargeyska caanka ah ee Telegraph, diyaaradan ayaa nooca la casriyeeyay loo arkaa mid ka mid ah hubka ugu halista badan ee Iran, waxaana la sheegay in loogu talagalay inay ka gudubto nidaamyada difaaca cirka. astaamaha diyaaradan ay leedahay ayaa lagu tilmaamay inay tahay mid ismidaamin ah, inay ku shaqeyso matoor jaad halka ay ka ahaan lahayd matooro marwaxada leh sida dad badan ay diyaaradani hore ugu yaqaaneen, inay gaari karaysa xawaare gaaraya 517 kilomitir qiyaastii 316 mayl. waxay leedahay masaafo howlgal oo lagu qiyaasi karayo 350 kilomitir oo isku wareega. waxay duuli karaysaa ilaa iyo joog kor u baxsan oo 9 kilomitir ah, waxaana hawada ay ku jiri karaysaa baa layiri saacado aad u fara badan. kaliyana waxa meesha ugu fog ay ku gaarayso 1 saacadood oo kaliya, iyadoo sida madaxyo qaraxya oo culeyskeedu u dhan yahay 30 kilogram. waxaana lagu ridaa baa layiri gantaal marka diyaaradaasi la tuurayo. waxay ka bedelan tahay diyaaradihii hore. diyaaradan ayaa waxaa ku jirta fariin dagaal iyo mid siyaasadeed sida dowladda Iran hadaladeeda laga dheehan karo. wargeyska Telegraph waxa uu leeyahay warbixinta la soo bandhigay ee la xiriira diyaaradda Hadid 110 xilliga dagaalka oo socda inaysan ahayn oo kaliya bandhig awoodeed, balse sidoo kale ay tahay bandhig siyaasadeed iyo mid military oo ilaalada kacaanka dalka ay u dirayaan dowladda Mareykanka iyo xulafadeeda. waxaana la sheegay baa layiri inay tahay nooca ugu horeeya ee diyaaradan lagu soo bandhigay xilli hore tan iyo markii dagaalka uu dib u bilowday lana qarajiyay Khamenei oo hogaaminaya wadankaasi Iran. ra'iisul wasaaraha Israel Benjamin Netanyahu ayaa ku dhawaaqay in uu shaki ka qabo heshiis kasta oo lala geli karayo dowladda jamhuuriyadda islaamiga ah ee Iran, waxaana uu tilmaamay in jawaab uu ka bixin doono talaabo kasta oo military oo lagu soo qaado wadankiisa inaan uu dul qaadan doonin. ra'iisul wasaaraha nidaamka Israel Benjamin Netanyahu ayaa sheegay in Israel ay si xoogan uga jawaabi doonto warar kasta oo lagu soo qaado, isagoo sidoo kale muujiyay inuu shaki ka qabo heshiis lala gaaro dowladdaasi Iran. waraysi uu siiyay warbaahinta Mareykanka ayuu Netanyahu ku sheegay in aragtidiisa ay si cad u sheegayso isagoo diyaar ah markasta una muuqda dagaal gobolka bariga dhexe ka dhaca iyo waliba tacadiyada lagu hayo buu yiri maraakiibta isticmaalaysa Hormuz. Netanyahu waxa uu sidoo kale sheegay in madaxweynaha Mareykanka uu leeyahay mowqif cad oo ku saabsan barnaamijka nuclear-ka Iran, isagoo xusay in Washington iyo Tel Aviv ay ka go'an tahay in tallaabooyin degdeg ah laga qaado dowladda Iran. waxaana ugu dambeyntii uu sheegay dagaaladan in ay noqonayaan kuwa dowladda Iran ay ku jabi doonto, waa sida uu hadalka u leeyahay. dagaalada ka soconaya gobolka bariga dhexe waxay bedeleen wadadii wada xaajoodka ee Mareykanka iyo dowladda Iran u dhaxaysay. sidaasi waa dood qaar ka mid ah aqoon-yahanada iyo khubarada dagaalka iyo waliba kuwa la fagura wada xaajoodka diblomaasiyadda iyo xiriirka caalamiga ay faaqidayaan. kaliyaha profesorada ee waaxda arrimaha caalamiga ee jaamacadda Qatar Cabdullaahi Bandar Al-Utaybi ayaa falanqeeyay sida dagaaladii ugu dambeeyay ay u saameeyeen wada xaajoodka u dhaxeeya Mareykanka iyo Iran, in ay jirto fursad dib loogu soo celin karo dhinacyada colaadda iyo dhaxdhaxaadiyaasha inay ku soo laabtaan miiska wada xaajoodka. Al-Utaybi waxa uu sheegay in su'aasha taagan ay tahay in dib loo dhisi karo isafgarad hore oo saldhig looga dhigayo wada xaajood cusub, balse ay lagama maarmaan tahay in gebi ahaanba la bilaabo hanaan cusub oo wada xaajooda.
qabiirkan waxa uu sheegay in Iiraan ay lumisay jihadii siyaasadeed waxaana ay dib ugu noqotay wadada iska horimaadka militariga weerarada oo ay ku qaaday kaabayaasha dhaqaalaha iyo goobaha rayidka ee dalalka gobolka ayuu ku tilmaamay kuwa loogu talagalay in shacabka gudaha Iiraan loogu muujiyo in dowladda wali ay awood u leedahay inay bixiso jawaab xoog leh inkastoo Iiraan uu sheegay in ay aqbashay wada xaajoodka haddana waxay hor dhigaysaa buu yiri arrimo badan oo aan la gali karin marka waajibaadkan laga doodayo Al-Utaybi waxa uu sheegay in Tehran ay mudnaanta siinayso ay qimid yihiin marinka Hormuz xaaladda Lebanon lacagaha Iiraan ee dibadda uga xayran intaas ku daray in hoggaanka Iiraan uu si weyn isha ugu hayo doorashooyinka dhexe ee Mareykanka isagoo tilmaamay in natiijada ay caqabad ku noqon karayso siyaasadda madaxweynaha dalka Mareykanka ee ku wajahan Iiraan falanqeeyaan waxa uu muujinayaa aragtida la xiriirta qabiirkan in uu arko dowladda Iiraan inay tahay midda kaliya ee hadda go'aamadeeda gobolka bariga dhexe ay saameyn weyn yeelan karaan kulan wanaagsan mar kale ee khiyaarta nala socota intaasi waxay ahaayeen wararkii ugu waaweynaa ee ka taagan gobolka bariga dhexe haddii aan dib idin xasuusiyo xaaladda hadda taagan iyo waliba dagaalada dowladda Sacuudiga aan ilaahay su'aasha taagan dagaalada dowladda Sacuudi Arabiya iyo dowladda Mareykanku ay ku qaadeen qaybo kamid ah saldhigyada wadanka Ciraaq xagee aadinaysa jihada gobolka bariga dhexe mase muuqata markan in laga shaqeynayo abuuritaanka dagaalo la xiriira Shiicada iyo Sunniga in la doonayo gobolka bariga dhexe in lagu haloo galiyo taasoo u muuqanaysa Mareykanka inuu dib uga bixi karo dagaalkaasi iyadoo gobolka bariga dhexe uu isku daynayo dhinacyadii hore isugu haysta madaahibta diinta magacaada iyo aragtidaada ku bilow kadib meesha joogtana ku xiji oo aragtidaada qaybta hoose faallada noogu qor halmaamin muuqaalkan laag inaad saarto si uu saaxiibo badan u gaaro sharena waad oran kartaa adigoo noqon kara saaxiibada inagu xiran oo YouTube-ka subscribe saari kara aad baad u mahadsantihiin